السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برامجكنا حقوق عافمad kusoo dhawaada maanta waxaan kugu soo qaadi doonaa mowduuc muhiim ah kaasi oo ah kaadi gubista wax loo yaqaano dysuria. xaqiiqatan ah wax nolosheena dheeli loo xiriira oo laga yaabo qof walba oo muuqaalkan daawada in uu maanta ka sheeganayo ama hore uga soo sheegtay. dysuria haddii aan u guda galo ama kaadi gubista waa nooc kamid ah ama qaab kamid ah hab kamid ah hababka jirkiina uu muujiyo in ay jirto xaalad caafimaad darro. waana calaamad soo muuqato kaliya waana in qofku uu dareemo xilliga kaadida xanuun iyo inuu dhibsanayo inuu kaadiyo. sidoo kale wuxuu dareemayaa qofku in kaadidu ay gubido. kaadi gubistu dumarka iyo ragga oo loo kala badan yahay waxaa aad ugu badan dumarka ayaa ugu badan oo ragga badan waxaa leeyahay waxaa ugu badan kuwa waaweyn marka loo fiirsho ragga dhalinyarada ah. si guud ahaana dumarka ugu badan. maxaa sababa kaadi gubista? kaadi gubista badana waxay ka timaadaa infection ka yimaada. infectionada nooca ku dhaca xubnaha la isku yiraahdo urinary tract infection. urinary tract infection waa xubnaha ka qayb qaata sameynta kaadida, marinka kaadida iyo kaydinta kaadida. intaas la isku yiraahdo kasoo bilow kilida ilaa kaadidu ka dhamaanayso. xubnahaas waxaa la isku yiraahdaa urinary tract infection. xubnahaas waxaa kamid ah la isku yiraahdo urinary tract infection kilida, tubada kilida ka soo qaada kaadida ee keenta kaadi haysta qudhiga infection ku yimaado iyo tubada ka soo qaada kaadi haysta kaadida ee keenta banaanka. halkaas marka marayo waxaan aad u ognahay oo aad xaqiiqsataa in tubada banaanka keenta kaadida ee ka soo qaada kaadi haysta dumarka iyo ragga ay aad u kala gaaban yihiin. oo waxaa la yiraahdaa badana in ragga infection uu ku dhaco uu ka yimaado banaanka infection kadibna uu u dhaadhaco kor aado waa yar tahay maadaama tubadaas ay dheer tahay oo tubada kaadi haysta ka soo baxay banaanka maayo. laakiin dumarku waxaa la yiraahdaa aad ugu nugul yihiin. marka waxaan hadda ka hadalnay in wax ugu badan ay sabab ay yihiin kaadi gubista urinary tract infection ama infectionada ku dhaca marinka kaadi haysta guud ahaanba. waana nooca ugu badan ee keena in kaadida qofka ay xanuujido. sidoo kale infectionada ku yimaada ama ka dhasha galmada ayaguna waxay leeyihiin ama soo muujin karaan kaadida inay ku gubto. waxaa kamid ah infectionadaas jabtada kamid ah oo galmada lagu kala qaado badan. waxaa kamid ah chlamydia infection, genital herpes oo viral ah ku dhaca xubnaha taranka. badana dumarka ayaa u badan xubnaha taranka infection uu ku yimaado. infectionka ugu badan waxaa la yiraahdaa la xiriirka kaadi gubista ee dhanka xubnaha taranka ee dumarka waxaa la yiraahdaa yeast infection. waa fungal infection waa nooc ugu badan. sidoo kale xanuunkaas markuu jiro ama yeast infectionkaas markuu jirto xubnaha taranka dumarka waxaa kaloo idan la arki karaa gabadha isku arki kartaa inuu ka yimaado qoyaan sidoo kale urkiisu bedelan yahay. waxaa kaloo yeelan kartaa cuncun ayay yeelan kartaa. sidoo kale xubnaha taranka waxay lahaan karaan cuncun, gubasho iyo inay yeeshaan meelo ay gelin biyo galaan bocoolo camal. waxyaabaha kale ay keeni kara in qofka kaadida ay gubto waxaa kamid ah caabuq iyo in ay jiraan wax qofka ku keenaya xanuunka ku keenaya macnaha oo aan infection toos ahayn laakiin waxyaaba sabab noqon kara. waxyaabahaas waxaa kamid ah dhagax hadduu ku jiro kale urinary tract infection kor ha jiro ama tubada ku jiro ama kaadi haysta ku jiro. haddii dhagax uu jiro kale wuxuu keeni karaa kaadi qof inuu gubto. sidoo kale waxaa dhici karta in xilliga la sameynayo galmada in shaqadaas hayto ay keento inay cadaadis badan ay saarto tubada ka soo qaada kaadi haysta ee banaan keenta. sida awgeed waxaa dhici karta in qofku dareemo kaadi gubto kale. sidoo kale waxaa dhici karta in kaadi haysta qudheeda infection uu ka sameysmo uu ka yimaado. waxaa kaloo dhici karta dumarka badana caadada ay ka go'day ayagana badana way isku arkaan. sidoo kale dadka raaca fardaha oo kale ayaguna way isku arkaan. sidoo kale dumarka ayagana haddii isticmaalaan waxyaabaha chemicalska sida saabuunta sida toilet paper oo kale waxyaabaha noocaas haddii ayaguna isticmaalaan ama waxyaabaha spermicides la yiraahdo oo daawooyin loo isticmaalo in ay dilaan spermka inay dilaan oo kale loo isticmaalo waxaa dhici karta idan gabadh in isku aragto kaadi gubis isku aragta macquula. waxaa jira la yiraahdo waxay kordhi karaan helitaanka ama jaaniska qofkan ay kaadi ku gubi karto. tusaale ahaan haddii aad dumar tahay waxaad ka jaanis badan tahay ragga inay kaadi ku gubto waa ugu jaanis badan. sidoo kale qof hadduu qabo kaadi macaan aydan waa dhici karta sababtoo kaadi macaanka waxaa la socda difaaca qofka yaraadana infection uu keeni karaa.
qofka da'ayso day sareyso sidoo kale way keeni kartaa kaadi inay gubto. Prostata ragga xilliga da'da ay yihiin oo kale weynaada ama xanuun kale ku weynaado asna uu keeni karaa. Dhagaxa ku jira kaliya sidoo kale uu keeni karaa. Uurka gabadha xilliga ay leedahay way isku arki kartaa. sidoo kale haddii kaadi haysta uu ku jiro catheter wax libaalka liiro kaadi lagu keeno banaanka loo keeno ayadana way isku arki kartaa way nugleyn kartaan. maxaa qofka calaamad ahaan ka soo muuqan kara oo si guud marka loo fiirsho maxaa la socon kara kaadi gubista? waa calaamada ma jiraan la socon kara kaadi gubista way jiraan sida qandho qofka inuu leeyahay kale. waxaa kale oo la socon kara kaadi inuu ka dareemo qofkii ur saa'ida. sidoo kale wuxuu qofku kaadi ku arki karaa dhiig. waxaa kale qofku isku arki karaa markii kaadi gubista ay jirto in badan mas'uul uu ku laabanayo ama kaadi uusan gaarsiin karin guud ahaanba. dhabar xanuun ama qofka oo inay xanuunaan labada dhinac fanqalada ayadana dhici karta. inta hadaan uu soo gudbo goorma u baahan yahay qofka inuu arko dhakhtar oo dhakhtar inuu booqdo u baahan yahay. haddii uu isku arko intii calaamadan ka soo hadalnay uu aadi karaa qofka dhakhtar uu tagi karaa. qandho iyo qoyaan cuncun haddii isku arko gabadha way aadi kartaa dhabar xanuun. waxaa kaloo ay dhakhtar booqan karaa qofka hadduu isku arko kaadi inaysan ka dhamaahayn oo kale. sidoo kale in kaadi socodkeeda iyo qofka dhibaato ku haydo kale in badan uu la laabanayo wixii aan ka soo hadalno dhan hadduu isku arko wuu aadi karaa. waxaan kaloo kaga faa'iideynayaa haddii aad isku aragto kaadi gubis una baahato dhakhtar waxaaba dhakhtarka la raba inaad u sheegto si uga qaato go-aan ama uu ku sareeyo xanuunka nooca ku haya. waa kuu muhiim markaas inaad dhakhtarka u sheegto nooca kaadida kalarka dhigay because kaadida dhiig noola socdo in dhiig isa laakiin ay tahay jaalle xigeen saayida. kalarka kaadida marka waa muhiim dhakhtarka waxba ku go'aaminaa inay jaalle tahay inay dhiig xigeen tahay waa muhiim. qadarta aad dhigayso inta aad dhigayso wax badan miya ma wax yarba maxaa ka hortaagan inaad iska hilmaamin. sidoo kale dhiig inuu ku jiro kaadida kale waa dhakhtarka u sheegtaa hadduu ku jiro kaadida haddii madax leedahay waa inaad u sheegtaa. kaadida ishaysiga duu badan yahay dhakhtarka u sheegtaa. inta ayaan kusoo koobayaa barnaamijkeena xoogaa caafimaad waxaan filayaa inaad ka faa'iideen waana ku mahadsantihiin.